inuu noqonin fadhigeennii fadhi maxaa la oran jiray inaan iskugu imaano halkaa ku dhammaado. waxaan rabnaa inay noqdaan wax ay ka soo baxaan wax miro dhala. waxaan rabnaa inay ka soo baxaan waxna anfaca. waxaan rabnaa inuu waqtiga halkan aad ku bixiseen uu noqdo waqti ehel u ah wixii saxda ahay ee baahida saxda ahay looga turjumay. dawladnimadana waa iska bilow, laakiin waxaan rabnaa in wax badan barnaamijyadan laga shaqeeyo sidii ummaddan maslaxadeeda loo heli lahayn insha Allah tacaala aan ka shaqeyna. fikirkiina qaaliga ah aan idin soo raadin inaan Kismaayo ka imaano aan halkan inaan idin la tashan aan u imaanayna waxaan filayaa inaad idinkana kamera dhalin doontaan. aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa. waxaan filayaa wax badan bulshada halkan joogta inay ka fahamsan tahay. gudniinka fircooniga wuxuu yahay guud ahaan iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda inta ruux u dhimata marar badan gabdhood oo ku nafwaysa, inta caqabadooyin kale xag caafimaad kaga dhacda, inta ku waysa in ay awlaad helaan caabuqyo ka dhashay iyo dhibaatooyin uu horseeday way badan yihiin. guud ahaan markii laga fiiriyo gudniinka fircooniga wuxuu yahay caqabada uu leeyahay bulshada dhibka uu ku haya waa wax aad baaxad u leh. annagana marka hay'ada ka shaqeynaya waa jiraan, hay'ada dawli ah oo ka shaqeynayana waa jiraan. maanta marka almuhim waxaan halkan iskugu nimid oo aan idinku yeernay oo aad nagala qayb gashaan aan doonayna oo culimo aan ugu yeernay oo dadka dhaqanka ah aqaasha aan ugu yeernay oo gabdhaha aan ugu yeernay dhalinyarada aan ugu yeernay bulshada qaybaheedaas kala gedisan waa in laga sameeyo wada tashi sharci looga talagalay ruuxa gudniinka fircooniga sameynaya waalidka ah kan ka shaqeysanaya oo qofkii wax gudaya ah qofka saacideynayay iyo qof kasta maxaa caqab oo la marin kara. sidee Soomaalidu waxay dhahdaa war la hela ayaa tala la hela. marka sharci waafaqsan diinta islaamka culimada baxthi ka sameeyeen iyo ciqaabaad la maray qofkii dambigan sameeyay markii la hela laguna dhaqo waxay noqonaysaa in laga gaaro in badan guul oo wixii waqti badan socday inay soo koobmaan. bini aadamka wax kama istaagay ilaa uu cabsado. xaqiiqda waxa weeye markaan qof la mariyay sharcigii la hindisay la qoray wada tashi bulsho la geliyay sida hadda halkan u fadhina bil 2 bilood ka hor Kismaayo waan ku qabanay dad khubaro aqoon-yahan ah ayaa sharcigan dib u fiiray oo akhriyay oo soo qoray. waxaan ka sameynay Kismaayo culimo inaan iskugu keenay ayaan ka sameynay fatwa oo iskugu yimid. barnaamijka marka in badan waa laga hadlay. marka culimadana inta badan waxay boorinayaan waxay ahayd waxaan in loo helo xal, waxaana looga heli karaa in loo helo xal waafaqsan diinta islaamka. waayo waxaa la isla qiray in uu dhibaato ku yahay bulshada, waxaa la isla qiray in uu saameyn badan ku leeyahay, waxaa la isla qiray in gabdhaha raad dheer noloshooda saameey uu ku dhaafi karay. marka bulsho ahaan waxaana saaran mas'uuliyad. waalid haddaan nahay waxaana saaran mas'uuliyad. culimo haddaa tahay waxaana saaran mas'uuliyad. haddii dhalinyaro aad tahay waxaana saaran mas'uuliyad. hooyo haddaa tahay waxaana saaran mas'uuliyad. marka mas'uuliyaddaas caamka ah inaan iskugu imaano annaga oo hay'adii dawliga maadaama Soomaaliya ay burbursaneed muddo dheer ay hadda kabanaysana waan dareemaynaa in culaysaad dhankasta uu jiri karay. laakiin haddana waxaan u baahanahay waxa weeye in sharcigan la sameynayo uu noqdo sharci uu noqdo gundhig
ay ka warqabaan culimmada Soomaaliyeed gobolka joogta, ay ka warqabaan hooyooyinka, ay ka warqabaan dhalinyarada iyo dhaqanka oo si yani wax la og yahay oo la daraasay ah. waayo waan fikirka waan jamcinaynay, fikirka markii ka imaado dadku ayaan haddana dib u gorfaynaynay oraahdii culimadii iyo halkii ay ka waafaqsan tahay haddii loo qoray ciqaab qafkii uu ku dhinto haddii lagu sameeyo faldambiyeedkani uu u dhinta maxaa ciqaab la marin karaa heer inta leeg. haddii qafkii ciqaabtii la mariya ciqaabta la soo qoray oo qoran oo shalay wada tashiga la soo geli maanta waxaad leedahay go'aan inaad ka dhahdo ciqaabtani kuma qafkani ciqaabtan inta in lagu reebaa qoran ayada oo loo eegayo diinta islaamka. wax kastana anaga waxaan marjacno ah diinta islaamka ayaa marjacno ah. waayo sharciyo fara badan la sameeyaa oo wax laga hagaajiyo, laakiin sharciga wuxuu naf iyo nuxur yeelanayaa markuu u qumaya ama xiriir uu leeyahay diinta islaamka wax laga soo qaatay oo yahay. laakiin haddii fikirka caalamiga oo United Nationska ee qaramada midoobay iyo ama waxyaabo noocaas lagu salay wuxuu noqonayaa waxaan aan naf lahayn oo bulshada anfican. bulshadana waxa anfici kara waa wixii iyaga ka imaade ma aha wax loo keen. marka muhiimadda halkan aan u joogno akhyaaray guud ahaan waa barnaamijka nooca u socdo. waxaana ka sameyn doonaa kooxo oraahdii waan aruurin doonaa, waan qoraynaa, waan jamcinaynaa, dib ayaan haddana wixii macquula iskugu celcelinaynaa, kadib waxaan samaynaynaa wada tashi kale ayaan gelinaynaa insha Allah.